Xarfaanta kubadda cagta ciyaarta waa xarfaan kala duwan. Mid waa gool haya ilaaliya shabaqa tinkiisa, mid kale waa daafac ilaaliya goolkiisa kubaddana si fudud say ugu soo gaarin goolkiibaha. Mid kale waa qad dhexe oo muhiimadiisu ay tahay in Brunei markasta uu haysto. Mid kale waa weeraryahan ku fiican markasta inuu goolka dhaliyo. Goolahayaasha ugu wanaagsan dunida Soomaaliya waxaa ka mid ah Jack, Noah, Khan iyo Cassilis. Kuwa daafacana waxaa ka mid ah Sergio Ramos iyo Maldini. Dhanka qadka dhexe waxaa ka mid ah Iniesta. Dhanka weerarka waa Ronaldo iyo Lionel Messi. Laakiin qormadina maanta waxaan uga hadli doonaa qiyaamadii la qiyaamay Ribery Ballon d'Or. Kusoo dhawow muuqaalkeena maanta, fadlan hadaad kanaalka cusub tahay subscribe saar mahadsanid. Frank Ribery wuxuu ahaa nin Kirishtaan ah ka hor intuu soo muslimiin. Qisada muslimadiisa waxay ahayd inuu bartay gabar ka soo jeeda waddanka Algeria. Kadib xiriir jacayl oo dhex maray waxay ku qancisay inuu muslimo si uu guursado diinta ayuuna sidaas ugu soo biiray una guursay gabadhii. Ribery lama garaneen ka hor kubadda cagta intuu ku soo biirin kooxda waddanka Jarmalka ciyaarta ee Bayern Munich. Kadib ku soo biiristiisa kooxda Bayern Munich wuxuu ka mid noqday ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxdaas. 2013 waxay ahayd xilligii ugu fiicnaa uu soo martay Frank Ribery. Wuxuu ku guuleystay Champions League, DPL, Copa, Bundesliga, Super Cup iyo Club World Cup. Bayern Munich ayuuna kula guuleystay. Sanadkaas waxay ahayd sanadkii Bayern Munich iyo Frank Ribery dib u xasuusta todobadii gool ee Barcelona ka dhaliyeen xilli ay Barcelona ahayd mid ka mid ah kooxaha ugu fiican caalamka. Ronaldo, Messi iyo Ribery ayaa isku soo haray hanashada Ballon d'Or. Laakiin qof kasta si fudud ayuu u lahaa Ribery ayaa ku guuleysanaya sanadkan. Ronaldo 69 gool iyo 13 caawin ayuu suubiyay. Messi 45 gool iyo 16 caawin ayuu suubiyay, halka Frank Ribery uu suubiyay 23 gool iyo 26 caawin. Inkastoo Ronaldo iyo Messi ay ka gool badnaayeen, laakiin waxaa la fiirinayaa badanaa siduu suubiyay Ribery ciyaaruhu soo bandhigay iyo koobka uu ku guuleystay. Laakiin tani ma hirgelin waxaana ku guuleystay Ballon d'Or Ronaldo. Tani waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah khiyaanadii ugu weyneed ee ka dhacdo kubadda cagta ilaa haddana waa la xasuustaa.